بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستا joogtaan jimco wanaagsan waa jimco 23 bisha May sanadka 2025 ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan diradda ku saarayno howlgal sirdoon oo shiinuhu ku fashilmay oo qorsheynayno ka fuliyo gudaha Turkiga sirdoonka Turkiga ayaa markaa guul muhiim ah gaaraya oo ka hortagaya mid kamid ah howlgaladii ugu casirsanaa ee sirdoon ee gudaha dalkaasi Turkiga laga fuliyo waxaase weli su'aasha ka taagan tahay oo sirdoonka Turkiga ay la yaaban yihiin ayaa tiknoolajiyada uu Shiinaha adeegsaday iyadoo mar horeba sirdoonka Turkiga ay ku sheegeen tiknoolajiyada sirdoonka Shiinaha ay adeegsadeen si ay howlgalo sirdoon uga fuliyaan gudaha Turkiga inay ahayd mid ugu casirsaneed ee taariikhda soo maraysa Turkiga warbixintan ayaa ku siinaysa macluumaad dhameystiran oo ku saabsan howlgalkaas sirdoonka Turkiga ee ka hortageen Shiinaha waxa uga dan lahaa howlgalka sirdoonka ka fulinaya gudaha Turkiga xiriirka labada dal ee wanaagsanaa arintan saameynta ay ku yeelan karto waxyaabaha la yaab kale ee sirdoonka Turkiga ay ku dhex arkeen howlgalka uu Shiinaha fulinayay cidda uu Shiinaha bigsanayay iyo wax kasta oo ku saabsan sheekada la xiriirta howlgalkan sirdoon oo xiisaha gaarka ah leh balse inta gudaha gal waxa ka codsanaya inaad ku soo biirtay kanaalkan YouTube ee Imaan Jaamac oo maalin walba ku siinaya macluumaadka ugu dambeeya caalamka Falanqeyn iyo dhacdooyinka ugu darka roon isla xilliga ay dhacayaan markale soo dhawaada aan ku horeynay sirdoonka Turkiga ee loo soo gaabiyay MIT ayaa fuliyay howlgalo gaar ah oo balse natiijada ka soo baxday ahayd mid la yaab leh kadib markii sirdoonka Turkiga uu si rasmi ah shaaca uga qaaday inay ka hortageen unugyo ka tirsan sirdoonka dalka Shiinaha kuwaas oo howlgalo sirdoon muddo dheer ka waday gudaha Turkiga warbixin uu sii daayay telefishinka CNN Turkiga ayaa lagu daahqaaday howlgalka ay fashiliyeen sirdoonka Turkiga ee la xiriiray unugyo sirdoonka Shiinaha ka tirsan oo muddo dheer hadda la xaqiijiyay ka howlgalayeen gudaha Turkiga haddaba muxuu ahaa howlgalkan sirdoon ee Shiinaha uu ka fulinayay gudaha Turkiga Shiinaha ayaa hadda la xaqiijiyay markii ugu horeysay in unugyo sirdoon oo muddo 5 sano howlgalayay uu ku beeray gudaha Turkiga waxa la xaqiijiyay in unugyadan sirdoon ee Shiinaha inay dabagal iyo dhageysiba ay ku hayeen dhaqaaqyada dadka Uyghurka ee muslimiinta Shiinaha kuwaasoo tacadiga uu Shiinaha kula kacayo ka soo barakacay isla markaana ku sugan gudaha Turkiga waxa la sheegay in xubno sirdoonka Shiinaha ay muddo ku siman 5 sano howlgallo basaas ay ka wadeen gudaha Turkiga iyagoo dabagalay muwaadiniinta Shiinaha muslimiinta ah ee Uyghurka kuwaasoo ka soo baxsaday ciqaabta iyo tacadiga uu Shiinaha kula kaco muslimiinta ku nool dalkaasi Shiinaha waa kuwa laga tir badan yahay bishii la soo dhaafay sirdoonku wuxuu sheegay in gacanta ay ku dhigeen 7 eedeysane kaasoo loo qabtay iyagoo falka si toos ah u waday 7 eedeysane oo la sheegay inay ahaayeen unug sirdoon oo Shiinaha ah dhammaantoodna u dhashay dalka Shiinaha ayaa la sheegay hadda inay fududeeyeen howlgal toddobaadka la soo gabagabeeyay oo lagu baacsanayay unugyo uu Shiinuhu ku dhex beeray gudaha Turkiga kuwaasoo howlgallo sirdoon ka waday gudaha Turkiga balse bartilmaameedkoodu waxa ay dabagalaan oo la socdaan dhaqaaqyada iyo xiriirada ay sameynayaan bulshada Uyghurka ee muslimiinta laga tirada badan yahay Shiinaha kuwaas oo isaga soo firxaday dalkaas isla markaana magangeliyo iyo dibadajinba ka helay Turkiga kadib markii Shiinaha uu galiyay cadaadis aan hore loo arag isla markaana uu ciqaabay bulshada Uyghurka ee laga tirada badan yahay ee dalka Shiinaha ku nool muslimiinta ah ayaa la kulmay tacdiye aad u dib badan waxa laga tagaa ilmahooda waxa la xiraa ragga dumarka ayaa sidoo kale tacadi xoog leh loo geystaa waxa laga hortagaa dhalmadooda ama in ay kordhaan taasoo laga hortagay bulshada muslimiinta Shiinaha u dhashay inay noqdaan kuwa awood ku dhaxlay gudaha Shiinaha cadaadiska xoog leh ee dhibaatada badan ay kala kulmeen bulshada muslimiinta laga tirada badan yahay Shiinaha waxa uu horseeday inay ka baxsadaan dalkooda isla markaana magangeliyo weydiistaan dalal kale Turkiga ayaa noqday mid kamid ah goobaha ay magangeliyada ka heleen isla markaana amaankooda ay u arkeen si weyn loogu sugi karo talaabadan hadda Turkiga uu muujiyay balse dhibaatooyin ayay wali dibadda kala kulmayaan iyagoo ku sugan bulshada muslimiinta laga tir badan yahay Shiinaha waana in sirdoonka Shiinaha ay la socdaan talaabo kasta oo bulshadan qaadayso tan dabcan la xiriirta in maadaama in badan oo kamid ah qoysaska hadda Turkiga ku sugan ama dibadda Shiinaha ku maqan ee bulshadan ka soo jeeda ay hore ula kulmeen tacdiyo aad u xanuun badan qaarkoodna waaridkooda ayaa la dilay kuwa kalena awlaadoodii ilmahoodii ayaaba ka maqan oo Shiinaha u haysta tan waxa ay suuragal ka dhigi kartaa in ay iyagu laftirkooda ka hortagaan dawladda Shiinaha si taa looga hortago oo loola socdo wax kasta ay sameynayaan Shiinuhu wuxuu u muuqdaa mid talaabo kasta ay qaadayaan bulshadan la soconaya Turkiga ayaa noqday goobtii ugu horeeyay ee fashilaya isku dayga uu Shiinaha ku basaasay isla markaana uu kula socdo bulshadan
kuwaasoo ah dad laga tira badan yahay balse ciqaab aad u daran dalkooda kala kulma. Hadda Turkiga waxa uu si rasmi ah u xaqiijiyay inay burburiyeen dhammaan unugyadii uu Shiinaha ku dhex beeray gudaha Turkiga, sida lagu sheegay warbixinta lagu baahiyay CNN Turkey. Xubnaha shabakadan waxa ay Turkiga galeen bishii Maarso qaarkood, balse howlgalku wuxuu socday muddo 5 sano ah. Hogaamiyaha unugan oo magaciisa loo soo gaabiyay ZL oo muwaadin Shiineys ah ayaa Turkiga yimid 5 sano ka hor si uu asaaso shirkad been abuur ah sida shirkad wax dhoofisa waxna soo dejisa ee logistikada loo yaqaano iyo ganacsiyo kala duwan. Wuxuu sidoo kale bartay luqadda Turkiga si uu si wanaagsan ugu agaasimo howlgallada sirdoon ee sirdoonka Shiinaha ay ka fulinayaan gudaha Turkiga. Dhammaan xubnaha la qabtay waxa la sheegay hadda inay yihiin muwaadiniin u dhashay dalka Shiinaha, mana jirin wax Turki oo ku lug lahaa howlgalkan. Tani oo ah khatar kale oo la xiriirta in Shiinuhu uu doonayo inaan waxba lagu ogaan howlgalladiisa sirdoon. Markasta oo wakiilo sirdoon ay wax badan ka bartaan dhaqamada dal kale iyagoo aan wax xiriir la samaynayn dadka u dhashay dalkaas, waxa adag in si dhaqso ah xubnahaasi ama unugyadaasi sirdoon laga hortago. waana wuxuu hadda Shiinuhu soo muujiyay, waxaana la sheegay hogaamiyaha howlgalka hadda uu burburiyay ama unuga uu Turkiga burburiyay ee sirdoonka Shiinaha inuu ahaaba nin 5 sano ka hor soo galay gudaha Turkiga oo shirkado ganacsi ku lahaa sida soo dejinta iyo dhoofinta. taasina waxa u fududaanaysa in warshadaha Shiinaha ay yihiin kuwa u furan suuqyada caalamka, isla markaana kuwa loo arko kuwa ugu muhiimsan ee wax soo dhoofinta. Tani waxay noqotay in sidoo kale uu fursadaasi ama warshadaha ganacsi ee Shiinaha ay fursad u noqoto sirdoonka Shiinaha, kuwaasi oo unugyo ama wakiilo sirdoon u diray dibadda oo loo muujinayo inay yihiin ganacsato. sida hadda uu Turkiga u dah qaadayna ninka hogaaminayay howlgalkan sirdoon ama madaxda u ahaa unugyada sirdoon ee muddada dheer ka howlgalayay gudaha Turkiga wuxuu ahaa Shiineys, isla markaana ahaa ganacsade shirkado been abuur oo furtay. ujeedada ugu weyn waxa lagu sheegay unugan sirdoon ee hadda la burburiyay, isla markaana sirdoonka Turkiga ka hortagay howlgalladoodana fashiliyay, in ujeedada loo asaasay ee la xiriirtay aruurinta xogta shakhsiyadeed ee dadka Uyghurka iyo saraakiisha Turkiga ay la xiriirayaan. waa maxay waxa la yaab kale ee sirdoonka Turkiga ay ku arkeen intay ku jireen burburinta unugan? sirdoonka Turkiga MIT ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa koodii ugu la yaabka badnaa waxyaabaha ku dhex arkeen. tani waxay la xiriirtaa in unugan sirdoon ee sirdoonka Turkiga ka hortagay Shiinaha ka howlgalayay gudaha Turkiga inay adeegsanayeen qalabka ugu horumarsanaa ee taariikhda ay arkayaan sirdoonka Turkiga in howlgallo basaas loo adeegsanayay. sida lagu shaaciyay warbixinta CNN Turkey oo laga soo xigtay xogta ay soo bandhigeen sirdoonka Turkiga ee MIT ama hay'adda sirdoonka Turkiga, waxa lagu sheegay in unuga la burburiyay ee Shiinaha ee howlgallada basaas ka waday gudaha Turkiga oo ahaa unug ugu horumarsanaa ee taariikhda laga hortagayo. tani waxay la xiriirtaa baa la yiri tiknoolajiyadda heerka sarreysa ee unugyada sirdoon ee Shiinaha uu Turkiga ku dhex beeray adeegsanayeen. waxa la sheegay in hadda unuga la burburiyay ee sirdoonka Turkiga ka hortageen ee Shiinaha inay adeegsanayeen nidaamyo tiknoolajiyadeed oo casri ah. waxaa ka mid ah baa la yiri in ay suuragal u ahayd isla markaana ay wateen qalab u fududeynaya inay jabiyaan nidaamyada isgaarsiinta, gaar ahaan khadadka isgaarsiin. goob kasta oo ay ka howlgalayaan isla markaana howlgalkooda basaas iyo dabagal ee la xiriirta bulshada laga tira badan yahay muslimiinta Shiinaha ee ku soo barakacay gudaha Turkiga, waxa ay jabinayeen telefoonadooda isla markaana waxa ay la soconayeen dhammaan dhaqdhaqaaqyada ay ka mid yihiin goobaha ay tagayaan, cidda ay la hadlayaan iyo xiriir kasta oo ay sameynayaan. tani xataa waxa la sheegay inay sameynayeen in telefoonadu ay duubayaan dhammaan kulamada iyo wada hadallada ay ka qayb galayaan bulshada laga tira badan yahay ee muslimiinta Shiinaha. qalab lagu magacaabo IMSE waxa la sheegay inuu ahaa qalabka ugu muhiimsan ee adeegsanayeen, wuxuuna u shaqeynaya sida tower sax ah ama nidaamyada saxda ah ee shirkadaha isgaarsiinta. telefoonkaaga shirkadda uu adeegsanayo mid ka mid ah tawaradeeda ayuu noqonayaa nidaamkan. taasi waxay ka dhigan tahay in dhaqdhaqaaq kasta iyo wax walba oo la xiriira wicitaanadaada iyo goobaha aad tagaysidba inay si fudud ula soconayaan unugan sirdoon ee hadda Turkiga uu burburiyay Shiinaha uu ku dhex beeray gudaha Turkiga. waxa la sheegay qalabka ay wateen inuu suurgal ka dhigay 50 mitir ee kasta oo lagu xiro qalabkan inay suurgal ka dhigaysay cid kasta oo adeegsanaysa telefoonada inay la socdaan, dhageystaan, isla markaana ay dhaqdhaqaaqa iyo wax kasta oo ka dhacaya goobtaasi ay duubaan. xogta la helay waxa si toos ah loogu gudbinaya baalay qof Shiinaha jooga ay u bixiyeen unugan la burburiyay Big Boss ama hogaamiyaha weyn sirdoonka Turkiga. mid ka mid ah waxyaabaha la yaabka ku riday
kaliya ma ahan adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah ee adeegsanayeen unugyada sirdoon ee Shiinaha oo gudaha Turkiga ku beeray balse waxyaabaha la yaab kale ee hadda uga baahan shaqo dheeraada sirdoonka Turkiga waa inay la yaabeen sida qalabkan casriga ah isla markaana ah qalab basaas oo dhibaato weyn ku ah muwaadiniinta Turkiga laftirkooda oo xataa laga yaabo in saraakiil Turki ah oo madaxda sare ee Turkida in lagu basaasay sida qarsoodiga ah ee loo soo geliyay gudaha Turkiga qaybaha qalabkan waa la kala bixiyay oo la kala jarjaray baa la yiri mid ayaa keenay anteenada mid kalena batariyada halka kuwa kalena ay keenayeen qaybaha kale si ay u muuqdaan inay wataan qalab aanan ahayn qalab basaas balse aan la fahmi karin tani waxay la xiriirtaa bool kasta ama bir kasta iyo qalab kasta oo adeegsanayaan sirdoonkan la burburiyay ama unugyadan Shiinaha ee basaasay muwaadiniinta Shiinaha ee muslimiinta laga tirada badan yahay inay gudaha Turkiga ku soo galiyeen qalabyadan ama nidaamyadan casriga ah ee basaas ay adeegsanayeen habab aan la fahmi karin bir kasta ama boor kasta oo kamid ah qof ayaa si shakhsi ah u soo galiyay Turkiga taana waa waxa hadda la yaabka ku radiyay sirdoonka Turkiga iyo sida qalab noocan ah loo soo galiyay balse taasi way adag tahay in la fahmo hal bool ama hal agab oo aan la garan karin wuxuu yahay ama aan laga shakin karin waana sababta sirdoonka Shiinaha qalabyada ama tiknoolajiyada isticmaalayeen bir kasta oo kamid ah ama boor kasta oo kamid ah hal qof loo soo dhiibay inkastoo ninkan Shiinaha ee ganacsiyada been abuurka ka sameeyay gudaha Turkiga haddana la xaqiijiyay inuu ahaa hogaamiye unug sirdoon oo basaasay muslimiinta laga tirada badan yahay Shiinaha ee igarka ee ku sugan gudaha Turkiga waxa la sheegay inuu ahaa basaas tababaro heerkooda sareeyay qaba xubnaha kale waxay ahaayeen baa la yiri dad tababaro kala duwan la siiyay tusaale ahaan nin kale oo kamid ahaa basaasiintan hadda gacanta lagu dhigay oo magaciisa loo soo gaabiyay ZYB waa muwaadin Shiineys ah oo kale wuxuu lahaa baa la yiri ama uu soo qaatay waxbarasho dugsi hoose ah waxaana la sheegay shaqadiisu inay ahayd ee unugan uu kaga tirsanaa inuu daaro qalabka wax lagu basaaso isla markaana dimiyo sidoo kale mid kale oo lagu magaciisa loo soo gaabiyay WR waxa uu sheegtay inuu ahaa farsamayaqaan dayactira wiishashka taasoo ay u badan tahay inuu ku gabanayay isla markaana uu shaqooyin la xiriira hagaajinta iyo cilad saaridda wiishashka dhismayaasha dhaadheer inuu ku daboolayay inaan la fahmin afar kale waxay u adeegayeen balasidii kuwa qalabka soo gelinayay gudaha Turkiga dhammaantood waxay iska fogeeyeen inay yihiin hal koox balse sirdoonka Turkiga wuxuu helay cadeemo muujinaya inay kulamo lahaayeen oo ay xiriir joogta sameyn kareen مسؤولين تركيا waxay sheegeen in unugan uu yahay mid kamid ah kuwa ugu baaxadda weynaa ee la fashiliyay sirdoon shisheeye oo howlgallo sirdoon ka fulinayay gudaha Turkiga waxa la barbar dhigay shabakado kale sidoo kuwa la xiriira Israel ama Iran ee howlgallada sirdoon ka fuliya gudaha Turkiga balse ilaa hadda unugan Shiinaha ee howlgallada basaas u waday sirdoonka Shiinaha waxa ay sirdoonka Turkiga u aqoonsadeen kuwa ugu baaxadda weynaa tiknoolajiyada ugu casrisaneedna adeegsanayay inta badanna marka loo eego sirdoonada ama wakiilada sirdoon ay adeegsan jireen sirdoonka Israel iyo Iranba waxay inta badan u badnaayeen dad Turki ah waxayna farsamadooda ku koobnayd inay jibiyaan GPS-ka ama ay la socdaan dhaqaaqyada sidoo kalena ay u dhacaan guryaha iyo gaadiidka shakhsiyaadka la basaasayo isla markaana ku xiran cod duube ama cod gudbiye iyo kaamirooyinba laakiin unugan sirdoon ee Shiinaha intaas oo dhan uu ku horumarsanaa oo uma baahneen in loo dhaco amaba la dareensiyo in wax dabagala lagu hayo shakhsiyaadka ay u baahan yihiin taas si ka duwan ama sida ay horey uga sameeyeen gudaha Turkiga wakiilada sirdoon ee Israel iyo Iran kuwa Shiinaha waxay adeegsanayeen tiknoolajiyad aad u heer sareyso oo aan marna laga shakin karin iyagoo banaanka ka jooga qofka ay dabagalayaan gurigiisa ama gaadiidkiisa ay haddana awood waxay u lahaayeen in la socdaan dhaqaaqiisa iyagoo jibinayay telefoonada isla markaana telefoonkooda ku xiriirinayay wax ula muuqday inuu adeegsanayo anteenada saxda ama khadka saxda ee shirkadaha isgaarsiinta ee gudaha Turkiga laakiin taasi ka duwan telefoonku wuxuu ku xiriirsan yahay tiknoolajiyada ay adeegsanayaan unugan sirdoon waxaana si dhow unugan sirdoon ula socday qof kasta oo kamid ah bulshada laga tirada badan yahay ee igarka ee Shiinaha ee ku soo barkacay ama dib u dejinta loogu sameeyay gudaha Turkiga kuwaas oo codadkooda la duubay lala socday kulamada ay ka qayb galayeen xataa hadal kasta uu gudbinayo wuxuu ahaa mid u suuragelaya unugan sirdoon inay la socdaan amaba ay duubaan Turkiga waxa uu hoy u yahay jalid weyn oo kamid ah bulshadan la soo qixiyay muslimiinta Shiinaha oo dhab ahaantii cadaadis weyn oo kala kulmeen dalkooda sabab ay noqotay ka soo baxsadaan si dhuumaalasho ah Turkigu wuxuu noqday dal u bareeray inuu muslimiintaasi dib u dejin u sameeyo isla markaana uu ka badbaadiyo cadaadiska iyo dhibaatada ay kala kulmayaan oo xariga uu kamid yahay
hay-adaha xuquuqda aadanaha waxay ku eedeeyeen Shiinaha inuu wado olole gumaada tan iyo sanadkii 2014 iyadoo kumanaan bulshadan kamida la xiray xiriyo saldhigyo ballaaran ahna uu Shiinaha u hirgeliyay si uu dadkan uga sooco dadka kale ee Shiinaha xabsina u dhigo. Sanadkii hore Turkigu wuxuu xabsi dhigay 7 muwaadin oo Shiinaha oo asalkoodu yahay bulshada Uyghurka kuwaas oo lagu eedeeyay basaasayeen isla jaaliyadda ay ka soo jeedaan. Eedeysanayaasha waxay sheegeen in lagu khasbay oo lagu cabsi geliyay qoysaskooda Shiinaha ku nool haddii aysan basaasin jaaliyadda ay ka tirsan yihiin bulshada muslimiinta ee ku sugan gudaha Turkiga. Waxayna noqonaysaa markii labaad oo Shiinaha uu ku fashilmayo inuu dabagalo isla markaana howlgallo sirdoon ka fuliyo gudaha Turkiga. Horey wuxuu ugu qasbiyay isla bulshada muslimiinta ka soo jeeda in qoysaskooda xabsi la dhigi doono amaba la ciqaabi doono haddii aysan howlaha sirdoonka Shiinaha u baahan aysan fulin. taasi markii la fashiliyay hadda Shiinaha wuxuu u bareeray inuu ka tirsan sirdoonkiisa u soo diro gudaha Turkiga. balse Turkiga mar kale wuxuu muujiyay tayadiisa sirdoon iyo sida ay awood u leeyihiin in ay la socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo sirdoon oo ka dhacaya gudaha Turkiga. Dhacdadan waxay iftiiminaysaa sida Turkigu u noqday xarun isku dhacyada sirdoonka caalamka oo loola jeedo inuu Turkigu noqday goob ay isugu yimaadeen sirdoonada caalamka maadaama Turkigu hoy u yahay dad badan oo mucaarad ku ah Shiinaha, Israa'iil iyo Iran. Dhammaantoodna dadkaasi waa dad muslimiin oo ka soo baxsaday ciqaabta iyo cadaadiska ay kala kulmayaan dalalkooda. Turkigu laabta ayuu u garaacday wana martigeliyay taasina waxay ka dhigtay dal hoy u noqdo muslimiinta la dhibaateeyo. qof walba wuxuu ka dharagsan yahay in Turkigu ka mid yahay goobaha ay nabadgelyada ku helaan dibadujinna ay ka helaan Falastiiniyiinta dhibaatooyinka iyo tacadiga kala kulma Israa'iil si lamida Sunniyiinta lagu dhibaateeyay Iran ayaa iyaguna soo dega Turkiga. Dhammaantoodna waxaa ilaaliya dowladda Turkiga. Sirdoonka Turkiguna si dhow ayuu uga hortagaa dhacdo kasta oo dadkaas lagu dhibaateyn karo. taasina waxay ka dhigtay Turkiga hoyga muslimiinta la dhibaateeyo. tan wuxuu Turkiga ku darsaday inuu hadda sidoo kalena awood u yeeshay inuu ka hortago mid ka mid ah sirdoonada ama unugyadii tiknoolajiyadda ugu heerka sareysa adeegsaday si loo dabagalo muwaadiniinta dhibaatada ay kala kulmeen dalkooda ka soo baxsaday. xiriirka Turkiga iyo Shiinaha tani dhibaato ma u keeni kartaa? muddooyinkii u dambeeyay Turkiga iyo Shiinuhu waxa xiriirkoodu ahaa mid aad u heer sareeya. hogaamiyaasha labada dal ayaana muujinayay saaxiibtinimadooda iyo xiriirkooda xataa haddii uu Turkigu martigeliyay dadkan oo khatarta u arko Shiinaha. xiriirkaasi waxba uma dhimin oo Shiinuhu markasta wuxuu u arkay Turkiga dal muhiim u ah xiriir iskaashi oo ganacsi iyo diblomaasiyad heerkooda sareeya ayaa ka dhaxeeyay. balse talaabadan waxa ay keeni kartaa mugdi laakiin looma qaadanayo inay halis ku tahay xiriirka labada dal. hay'adda sirdoonka Turkiga ee MIT ayaase mar kale muujinaysa awoodeeda sirdoon. horey sirdoonka Turkiga waxay awood u yeesheen inay ka hortagaan oo ay burburiyaan unugyo ay Israa'iil ku beertay gudaha Turkiga si ay ula socdaan dhaqaaqa Falastiiniyiinta iyo bulshada kale ee Carabta ah ee Israa'iil ay khatarta u arkaysay. intaa oo kaliya ma ahan sirdoonka Turkiga ama hay'adda sirdoonka Turkiga ee MIT waxay burburisay unugyo Iran ay ku lahayd gudaha Turkiga. balse guusha ugu weyn ee gaarayaan sirdoonka Turkiga ayaa inay hadda ka hortageen unugyo sirdoon oo Shiinahu ku dhex beeray gudaha Turkiga oo adeegsanaya tiknoolajiyadii ugu heerka sareysay. warbixintan ayaa intaasi inooga eeg waxaan kaaga tegayaa fikradaada qaybta falcelinta noogu reebi kartid inta aynu ku kulmayno warbixinada xiga. sidaas iyo amaana Allah.